kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Boortaqiiska, Soomaaliga iyo af-Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Trump oo guulaystay natiijooyinkii doorashada Maine, hanjabaado toogasho oo been abuura iyo weliba amar lagu soo rogay dhismaha hoteelada. galab wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin Jimco ah, bisha November ay tahay 8. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan. idinla socodsiinayo anigu Maxamed Xasan. haatanna kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Trump oo guulaystay. Donald Trump ayaa si aad u weyn uga guulaystay Kamala Harris, isagoo mar labaad ku guulaystay aqalka cad ee Maraykanka kadib olole qalaase iyo qaybsanaan dhaliyey. Trump waxa uu Maine ka helay hal cod oo deegaan oo uu ka helay degmada labaad ee Koongareeska Maine. Maine waxaana ka mid tahay 2 gobol oo ka mid ah Maraykanka oo iyagu qaybiya doorashada ururada ama deegaanada ee gobolkooda. Trump waxa uu ku guulaystay degmada labaad ee Maine markii saddexaad, isagoo 2 jeer oo hore 2016 iyo 2020 ku guulaystay isla degmadaas. Natiijooyinka doorashada ee gobolka Maine. Maine waxaa codeeyey dad aad u badan Talaadadii lasoo dhaafay, taasoo keentay in muddo dheer ay socoto tirinta codadka la bixiyey. dhowr tartan oo muhiima gobolkana ilaa hadda aan la kala cadaynin. xildhibaanada degmada koowaad ee golaha Maraykanka Shelley Pingree oo dimuqraadi ah ayaa iyadu si dhib yar ugu guulaysatay mar kale doorashada, waxayna ku noqon doontaa Washington markii 9aad iyadoo ka mid ah xildhibaanada Koongareeska. codbixiyayaasha Maine ayaa iyaguna waxay si weyn u ansixiyeen xeer lagu xadidayo tabarucaadyada maaliyadeed ee ololayaasha doorashada, ololayaasha siyaasadeed. su-aal kale oo ay codbixiyayaashu iyadana ansixiyeen waxay ahayd lacag malaayiin dollar ah oo lagu hagaajinayo jidadka ay maraan dadku marka ay u lugeynayaan si ay ugu raaxaystaan. hanjabaado toogasho oo beena. maalintii doorashada, dhowr dugsi sare oo Maine ku yaala ayaa waxaa lagu soo wacay waxa la yidhaahdo swatting-ka, taasoo ah in dadku ay si been abuura u soo wacaan bilayska iyagoo u sheegaya in qof uu toogasho halkaas ku sameeyey, iyadoo intaas markaasi ay taasi been tahay, looguna talagalay in lagu carqaladeeyo dadka meeshaasi jooga. saraakiisha doorashada ayaa waxay sheegeen in mid ka mid ah wicitaanadaasi aan waxba usan hakin. hakinta hoteelada. magaalada Portland waxa ay soo rogtay hakad ku meel gaar ah oo mashaariicda dhismaha hoteelada iyo kuwa ballaarinta hoteeladaba lagu soo rogay. codayntaas ayaa waxa ay ku guulaysatay 6 ilaa 2 codbixiye oo codbixiyaasha xildhibaanada deegaanka ee magaalada Portland habeenkii Isniinta lasoo dhaafay. xildhibaanada golaha deegaanka ayaa waxay sheegeen in hakintani ay siin doonto waqti ay dib ugu eegaan xeerkii 2019 la ansixiyey, kaasoo farayay in hodheeladu marka ay dhisaan 28 qol oo kasta ay iyadana dhisaan hal guri oo loogu talagalay dadka danyarta ah, iyadoo saraakiisha Portland ay sheegeen in hoteeladu ayna muddadaas 2019 ilaa hadda aysan wax guryahaas ayna ka dhisin. shirkadaha dhismaha hoteeladu laakiin waxay xaq u leeyihiin inay sii wadaan dhismayaasha ay u soo gudbiyeen mar horeba guddiga dhismaha ee magaalada Portland. daawadayaal, halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaas iyo sarag dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan.
Seaport Credit Union waxaa ka go'an daryeelka dhaqaale ee dadka reer Maine oo ay ka shaqaynayeen tan iyo 1931. Waxay xarumo ku leeyihiin Augusta, Scarborough, Portland, waxayna dhowaan furi doonaan mid ku taal Lewiston. seaportcu.org. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor maineconnection.gov.